maxay ka samaysan tahay taabuu keena maadadan khatarta ah ee loo yaqaan taabuu maxay u isticmaalaan ardayda tuwaakadan aan qiica lahayn ee taabuu waa maxay dhibaatooyinka ay leedahay tuwaakada taabuu degniin waa dareen qeela iyo dhiila daawataale arbal daya laygu oran dulka baabato taa ku taal tambuugu ka tambadana السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان ومدى صوماليات انت وديرنا حيث دالكان يدد كيسا او دارين صومالي مكجروا waxaa idin la wadaagi doonaa muuqaal kooban oo ciwaankiisu yahay tuwaakada taabuu iyo dhibaatada dhalinyarada oo aan ku soo koobi doon ilaa iyo 5 qodob qodobka koobaad hadaba maxay tahay taabuu kan labaad maxay ka samaysan tahay taabuu kan saddexaad xagee laga keenaa maadadan khatarta ah ee loo yaqaan taabuu kan afaraad maxay u isticmaalaan ardayda tuwaakadan aan qiica lahayn ee taabuu kan shanaad waa maxay dhibaatooyinka ay leedahay tuwaakada taabuu ugu dambeyn waxa ku soo afmeeri doona tixyar oo gabay ah dhalinyarada dalka waxa lagu aafeeyay muqaadaraad ka yimaada dibadda kaasoo ay malaayiin dollar ku baxda bil kasta xilli ay dad badan qaajo la tacaalayaan qaybo kamid ah dalka hadda saarintii karkaarada ayay soo dhaaftay waxa markaan loo soo tashtay dhalinta da'da yar ee wax barata maadaama ay yihiin wixii mustaqbalka dalka iyo dadka waxa wadankii loo soo suuq geeyay maada kale oo ka sii khatar badan qaadka iyo sigaarka hot filter qaani oo Soomaalidu u taqaan taabuu ayaa farabaan ku haaya dhalinta hadaba maxay tahay taabuu waa tuwaaka aan qiic lahayn misana noocyo badan leh waxay u soo caraftaa sida furuudka oo kale waxay leedahay kar ka duwan midka tuwaakada iyo sigaarka hadda satantaalo wadankeena ma gaarsiisan heer ay u soo carafto sida furuudka oo kale waxa la geliyaa bushimaha iyo ciridka inta u dhaxayso waxay noo sheegeen shirkadaha soo saaray tuwaakada aan qiica lahayn ee taabuu in ay bedel u tahay sigaarka oo qofkii aan doonaynin cabista sigaarka ama meelaha aan laga ogolayn sigaar in lagu isticmaalo tuwaakadan loo yaqaan taabuu hadaba maxay ka samaysan tahay tuwaakadan loo yaqaan taabuu waxay ka samaysan tahay maado la dhaho nicotine oo ah maado qofkii isticmaalo uu qabatin ku noqonayo si fududna uusan iskaga jooji karin waxay sababtaa cudurro halis ah oo ugu dambeyn qofka naftiisa galaafan kara xagee laga keenaa maadadan tuwaakada ee khatarta ah ee taabuu maadadan khatarta ah waxa laga keenaa wadamada dhaca bariga Aasiya sida Hindiya Pakistan Bangladesh iyo Myanmar sidoo kale Sri Lanka wadanka ugu badan ee soo saara waa wadanka Hindiya bilowgii 2003 ayuu soo galay wadamada dhaca qaaradda Afrika gaar ahaan geeska Afrika oo Soomaaliya ay ka mid tahay looma kala harin wiil iyo gabar oo jeebka ayaa lagu wada qaatay ileen wixii cusub caalamka ayaa jecel daraasad la sameeyay ayaa lagu sheegay inay aad ugu badan yihiin qaadashada tuwaakada taabuu gabdhaha Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho waxa aad ugu soo batay dhalinyarada isticmaasha tuwaakadan khatarta ah ee taabuu haba ugu badnaadaane dhalinyarada da'yarta ah ee iskuulada dugsiga sare iyo waliba jaamacadaha looma kala harin wiil iyo gabar oo jeebka ayaa lagu wada qaatay maxay u isticmaalaan ardayda tuwaakadan aan qiica lahayn ee taabuu isticmaalkeeda markii hore waxa ku badnaa qaar kamid ah dhalinyarada ciyaarta kubadda cagta kuwaasoo loogu sheekeeyay in ay ka helayaan firfircooni iyo nashaad xilliga ay ciyaarayaan kubadda taas ayaa ka dhigtayna in ay caadaystaan oo ay isticmaalaan xilli kasta oo ay ciyaar leeyihiin ugu dambeyn waxay u soo gudubtay daayarta iskuulada
kuwa dugsiga sare iyo jaamacadaha iyana waxa lagu abuuray fikir ah in ay siinayso firfircooni iyo nashaad iyo fahmo iyo dhug dheeraad ah oo ay ku bartaan maadooyinka dhibaatooyinka ay leedahay tuwaakadan taabuu aan qiica lahayn. daraasad la sameeyay ayaa lagu sheegay maadadan nikotiinka ah oo ay ka samaysan tahay tuwaakadan aan qiica lahayn qofka markuu qaato 8 ilaa 20 ilbiriqsi gudahood inay ku milanto dhiiga kadibna ay u gudubto maskaxda, taasoo ka dhigan qofka caadaystay inuusan si fudud iskaga day karin. sidoo kale maadadan haddii ay jirkaaga ku badato waxay sababtaa cudurrada kansarka ee ku dhaca afka, bushimaha, dhuunta iyo qanjiraha iyo sidoo kale sanbabada. waxay sababtaa cudurro halis ah ee ku dhaca wadnaha sida garaaca wadnaha oo siyaada, habsami u shaqaynta dheefshiidka. sidoo kale qofka caadaysta wuxuu dareemaa lalabo, matag, dawaqam iyo shuban, kaasoo ugu dambeyn qofka naftiisa ku weyn kara. gabdhaha isticmaala waxay waxyaalo kaga timaadaa dhalmada. sidoo kale waxay sababtaa maadadan haddii ay jirkaaga ku badato falal anshax xumo. daraasad ay samaysay hay'adda WHO ee caafimaadka u qaabilsan adduunka ayaa lagu sheegay in tuwaakadan aan qiica lahayn dhibaato baaxad weyn leh ay ku hayso caalamka, haba ugu badnaatee wadamada heerkooda yahay heerka dhexe iyo heerka hoose. waxaa daraasad lagu sheegay in ay geysato dhibaatooyin nafeed, mid maaliyadeed, sidoo kale mid bulsho. waxaa la xaqiijiyay in sanad kasto ay u dhintaan dad kumanaan ah cudurrada kansarka oo ay maadadan sababtay. waxaase fajac iyo amakaag leh, bacda ay ku jirto tuwaakadan dusheeda waxaa ku qoran waa ay ka khatar badan tahay sida aad u moodaysid, oo ka dhigan khatarteeda in laga taxadiro. haddaba waayaabee dadka isticmaala ma indhaha bay la'yihiin mase kuma soo dhacday inay aqriyaan bacda dusheeda oo yaa yaqaan. haddaba maxaana la xal ah? diintayna islaamka ayaa gebi ahaanba mamnuucday nuuc kasta oo muqaadaraad ah, iyadoo ay ka mid tahay tuwaakada aan qiica lahayn waxyaabaha maanka dooriya ee qofka maankiisa badasha. ugu dambeyn waalidiinta iyo maamulka iyo macallimiinta iskuulada waxaa la gudboon in ay ka arinsadaan dhibaatadan sidii looga hortagi lahaa amba looga mamnuuci lahaa goobaha waxbarashada. taasu waa digniin, waa dareen qeela iyo dhiila daba taale. taasu waa digniin, waa dareen qeela iyo dhiila daba taale. arbal daya laygu oran dulka babaaye, arbal dayaanay ii dabguran dala curyaduye, arbal daya dadow ceebtu way daba ordaysaaye, arbal daya hablihii doonaray dubsay cadowgiye, arbal daya hablihii doonaray dubsay cadowgiye, arbal daya anoo doog fadhiyo ayaan diracsadaye. afar walxaato taa ku taal tambuugu ka tambadana, dharkeenku tiifqay afka toog tambuugu ka tambadana, midda la tidcay 10 jeer tambuugu ka tambadana, midda la tidcay 10 jeer tambuugu ka tambadana, tiitiin afkaaga ku taqalaal tambuugu ka tambadana, tan weyna good candhuuftuufkiis tambuugu ka tambadana, tan weyna good candhuuftuufkiis tambuugu ka tambadana. toofiiqdu waa ina ka taal tabarta waxa uu mataare, toofiiqdu waa ina ka taal
tamarta waxa uu ma taare hadalka waa fudud yahay waxaase ka sii fudud riyada rajadana dadka ayay kala dhaxaysaa waxaase markasta guuleysta dadka go'aanka leh insha Allah mawduucayna maanta intaas ayaan ku soo gabagabay doonaa waxaan uga hadlaynay ciwaankiisu ahaa sida aad hore ku soo aragteenba tuwaakada taabuu iyo dhibaatada dhalinyarada mawduucaas oo ah mawduuc caafimaad ku saabsan insha Allah waxa soo qaadan doonaa iyana ciwaano kale ha ahaato dhanka caafimaad amba ka dugnaato insha Allah mawduucayna maanta intaas ayaa ku soo gabagabay doonaa wabillahi tawfiiq والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته